tacaala kaga sii wadi doonto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo mar walba uga mahad celinayna inuu fursad u siiyay dhalinyarta inay talada dalka qayb ka noqdaan aad iyo aad Cabdiqani wuxuu ka mid yahay dhalinyartii madaxweynuhu jaaniska u siiyay inay talada qayb ka noqdaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ku weydiinaynaa inuu kugu asturo sidaa dadweynuhu sheegayna gobolka runtii yaa laga wada dhig inuu gobol cagaaran oo nabad iyo aanay howloolinay hawl ballaaran baa runtii taala waa gobol runtii 3 degmo oo ka mid yahay Itoobiya xad la leeyihiin hawlaad iyo aad u ballaaran baa taalo oo aan har iyo habeen nasasho lahayn ilaahayna subxaanahu wa tacaala inuu hawsha ku fudaydiyana waanu rajaynaynaa talabaad guddoomiyahayagii hore mudane Cabdikariin Aadan Xaaji Diiriye oo ah guddoomiyaha gobolka Sool madaxweynuhu u gartay inuu xilkiisa tago isagana runtii aad iyo aad baan u sagootiyeynaa mudane Cabdikariin waxaan ka mid ahaa dadka ay sida dhow u wada shaqaynayeen muddaduu joogay waan uga mahad celinaynaa runtii muddaduu gobolka ka shaqaynayay iyo sidii sharafta lahayd uu shaqeeyay waxaan ka marxaati kacayaa inihii halkan laga dhawaajiyay inuu lahaa guddoomiye Cabdikariin qarankeenani maalinba meel buu marayaa mal nabadayn iyo hubka dhigis baynu ku jirnay mar waxaynu ka shaqaynaynay dib heshiisiin mar waxa laga shaqaynayay dibudhis maantana waxaynu u baahanahay in laga shaqeeyo horumar iyo adkeynta runtii dawladnimada iyo shuruucda mudane Cabdikariin waxaan aad iyo aad ugu amaanayaa muddaduu shaqaynayay xilka uu madaxweynaha qaranku u soo magacaabay inuu si daacadnimo leh oo xilkasnimo leh oo hagar la'aan uga shaqaynayay hadday tahay xoojinta nabadgelyada hadday tahay xoojinta dawlad wanaagga hadday tahay hirgelinta sharciyada hadday tahay gudashada waajibaadka runtii sifooyin aad iyo aad u qiimo badan buu guddoomiyuhu lahaa oo ku xasuusanana si gaar ah sidoo halkan guddoomiyaha oo jaalaba ka sheegay aad iyo aad buu go'aanada iyo shuruucda ugu adkaa waana waxa qarankeenu u baahan yahay haddii aynaan shuruucda aynu dhigano la ixtiraamin la dhaqan gelin dee socon mayno waxa kaloo runtii aan uga mahad celinaynaa muddaduu shaqaynayay arrimo fara badan oo gobolka ku soo kordhiyay oo qaarkoodu isagu fikirkoogana lahaa jeebkiisana ka bixinay runtii waa markii ugu horeysay gobolka degmooyinkiisu ay isu wada xidhan yihiin sidoo kale wuxuu door weyn ka qaatay amniga iyo xoojintiisa waa markii ugu horeysay ee isgaarsiinta 6 degmo ee booliska ee heeganku ay si joogto ah wada shaqeeyaan nidaamkaasi guud ahaan gobolada Soomaaliland kama jiro laakiin gabilay uu ka shaqeeyaa rugaha dhammaan ciidamadu ka howlgalaan baraha kaantaroolada heeganka degmooyinka dhammaantood si joogto ah bay isu wada maqlaan halkan aan laga hagaa waa fikir iyo aragti runtii guddoomiyuhu gobolka soo kordhiyay oo aan uga mahad celinayno waxyaalo fara badan oo qiimaheeda leh oo xoojinta nabadgelyada ayuu door weyn aad iyo aad ugu lahaa marka arrimaha samafalka sidii uu Sheekh Xasan halkan ka sheegay iyadana runtii marxaatigeena oo nahayo waxa aad iyo aad u weyn oo fara badan nin naxariis leh oo aad iyo aad dadka ugu dhibirsan oo jeebkiisa dadka ka caawiyo aan shaqada dawladdu la sugin buu ahaa waxaan xasuustaa maalmaha kamid ah safar baanu ku maranay degmada Agabax hay'adaha dawladda aanu runtii galgelinayo kolba meel iyo baahiyaheeda iyo duruufaheeda aanu eegnay waxaanu galnay xanaanada hooyada iyo dhalaanka Agabar deedna waxaanu galnay qaybta dhalmada waxa la noo sheegay baahiyaha halka taagan oo tirada hooyooyinka la keenayo iyo sariiraha dhalmada yaala inay kala badan yihiin anagu markaa dawaanu nowdgareysananay oo buugaanu ku qoranay qorshaha iyagu wuxuu ahaa baahida in la soo daboolo laanu isula noqono show guddoomiyuhu markii aanu ka baxnayba sariirihii telefoon buu ku dalbay habeennimadun buu dhayna noo yimid sariirihii sida runtii arrimaha aad iyo aad kaan u xasuustay ka mid tahay isagaana jeebkiisii ayaa ka bixiyay mudane guddoomiye wanaaga gobolkaaga iyo dalkaagaba gashatay runtii waanu xasuusanahay waana waxyaalaha aynu qaran ahaan u baahanahay inaynu dawladnimadeena xoojisano oo aynu baylahadeena ka shaqeyno waxyaalaha aynu aad iyo aad u baahanahay guddoomiyuhu ka shaqeyn jiray waxa kamid ah dalkeena waxna waynu haynaa meel kasto oo service dadweyne lagu hayo in baynu awoodnaa lagu qabtaa waxna ma awoodno aragtideena waxa laga yaabaa inta inaga maqan u baynu niyada ku haynaa deedna waxa baylahda intii yareeyeen shacabku u qaban karnay arrimahaas waxa u baahan yihiin in si joogto ah la isku xasuusiyo
gudoomiyaha waxyaalaha qiimaha leh runtii aan ku xasuusanahay waxa ka mid ah kormeerada iyo dabagalka oo baro saabkii horeeyay arka saddexda habeenimo isagoo kormeer sameynaya waana nidaamka iyo wax loo baahay dawladnimada runtii inay ku shaqeyso aad iyo aad baad gudoomiye arrimahaas oo dhan waxa weeye markhaati baanu kaaga nahay waa ku sheeganaa ummadana waanu u sheeganaa in mas'uul ku habboon mas'uuliyadda uu hayaadahay fursadna ay u heleen gobolka Sool oo rajeynaa inta ay ka badan baynaad ka qaban doonto gobolka Sool shacabkiisa iyo xukuumadda wax laga mahad celinayaa hawsha qiimaha leh ee gobolka laga qabtay oo gudoomiyaha cusub gobolka Gabiley hormoodka u ahaa ee laga saaray runtii gobolka dadkii aan u dhalan waa arrin taariikh leh oo runtii aan qarankeena markii ugu horeysay fushay aad iyo aad baa shacab ahaan mas'uuliyiin ahaan madaxda dhaqanka doorka weyn ee ka qaateen iyo waxa bulshada u horseedeenba aanu idinka mahad celinaynaa xukuumadana uga mahad celinaynaa waa waxaynu u baahanahay adduunyada meel walba lama wada laha dunida waa la kala leeyahay nin walba dalba uu dhashu leeyahay cid walba dalkeeda deeyna ilaashato qofka la joogaana nidaam sharci ah ku joogo wax dhibo ku jira ma jiraan arinta iyo hirgelinteeda guud ahaan xukuumadda iyo shacabka reer Soolba aad iyo aad baanu uga mahad celinaynaa ilaahayna waxa rajaynaynaa insha Allah taala amniga iyo iimaanka inuu inoo xoojiyo labada gudoomiye mas'uuliyadaha ay qabteen midna gobolka Gabiley midna gobolka Sool ilaahay ha ku asturo inta marka laga yimaado daawuska bahalka la yiraahdo nabar yar buu leeyahay quruxdiisa sidoo uu arkay nabarka uu buu eegaa annaguna reer Gabiley ahaan nabar baanu leenahay xildhibaan asoowan ku soo hal qabsanayaa xafladaha noocan ee xildhibaanada baarlamaanka ay yimaadaan deedna nabarkaas aan hoos u yar eegnaayo waa arinta gobolnimada laga dhawaajiyay kol hadii xildhibaanad sheegtay golihii wakiilada in qofkii ugu daaweynaa iyo xilkii daayirada waa haysaan wax weyn baanu halka ka rajeynaa gudoomiye Ciro meel dhaweed halkan ka hadlayay gobolnimada Gabiley waxa bixiyay daahir yaale waqtigaas xukuumadda ay ka soo dhamaatay muddada daahir yaale oo gobolnimada ku dhawaaqay wixii ka dambeeyay ciidda gobolnimada Gabiley waxa nibantay waa golaha wakiilada aad baan uga xunnahay Cabdiraxmaan Ciro oo dhowr iyo 10 sano golaha wakiilada hogaaminayay oo aan maalin qura soo hordhigin golaha wakiilada oo aan u loobin garayn oo aragti ahaan u soo jeedin inuu maanta yiraahdo gobolkii baan ka shaqeynayaa runtii arrin waxa weeye waxa la yiri in ragiina uu garanayaa doqonna loo sheegi maayo hadalka waxaan uga fadhinaa golaha wakiilada ee cusub ee waxa weeye Axmed uu maanta faratoon odaygeena weyn runtii hogaaminayo inay arintaasi meel saaraan insha Allah taala halkay taalaano waa halka waxaanu hubnaa inuu gobolkan yahay gobol ballaaran oo dhammaan shuruudaha xeer number 23 ee aad u dejiseen in loo eego gobolnimada fuliyay